mahad capital voice waxaa ka baxa barnaamijyo dhowr ah aan soo qaato barnaamij adiga ku dhahda soo saarto oo la yidhaahdo muqdishoii maanta barnaamijkaasi maxaa loogu talagalay muxuu qabtaa waa barnaamijka dabcan ugu waktiga dheer ee idaacadda capital voice barnaamijyada ka baxa inta aad jawaabin su-aashaas dabcan astaan buu leeyahay barnaamijku oo aan filayo 9 subaxnimo ama barqanimo marka la gaaro marka dadku ay maqlaan dabcan inuu kusoo dhacayo in barnaamijkii muqdishoii maanta uu qadka hadda toos ku yahay طبعا وحق ورن وحلقة يا باو كل موسيقى كمر كان مقلانو مقدشية مانتا ما هي وحق ورن طبعا مانتا نقول تبال دقيس سنة قولي أفراد كسو ورقتين إذا عاد كابيتال فويس حل جيل أساسي صلنا صعود الله كاستان بيليهين أو أهبط كيري فهمان وحنا استان الله هنا دتكو مرة كل ما فهميان إن مركل اللي يرهدوا كلام إن ميل مقع مركل الله بحيو كلام magacaas waxa lagu bixinaa dadkiina ku aqoonsadaan si markaas hadhow aan loogu wareerno kale tusaale ahaan shabaqada oo kale qofka wadada maraya oo kale marka muusigan uu maqlo xitaa hadduusan waqti u hayn inuu ku dhageysto wuxuu ogaanayaa in barnaamijka muqdisho maanta uu toos yahay aad iyo aad maxaa loogu talagalay marka waxa loogu talagalay dabcan horta waa furitaan muusig waxayna dabcan muusigaasi laga soo guuriyey heystii capital voice loo qaaday waxayna muujinaysaa maadaama heesta capital loo qaaday barnaamijkana uu yahay barnaamijka asaas u ah barnaamijyada idaacadda capital voice in astaantaas ay tahay astaan qof kasta meel kasta uu joogo uu garowsado uu ogyahay waxaa laga yaabaa dhegeystayaasha qaarkood oo kale markay dibadaha naga soo wacaan waxaa laga yaabaa qaarkood waxay ku dhegeysiinayaan muusiga oo kale iyagoo aan kula hadlin waxay kuu muujinaa marka qofkaasoo kale inuu weli uu kugu xiran yahay meel kasta uu tagay inuusan weli kaa go-in welina uu ku dhegeysanayo marka barnaamij ahaan barnaamijkan waa midka ugu waqtiga dheer sida aan hore usoo sheegnay barnaamijkan maxaa loogu talagalay waad mahadsan tahay barnaamijkan isaga horta waxaa aasaas u ah xoojinta nabadda waxaa ku jira sad la socoto xubin hooda la yidhaahdo oo xaafadaha magaalada muqdisho in dadka ku nool ay isku xirmaan sababaysa weliba xubintaas waxay qayb ka tahay isku xirka xaafadaha iyo nabadda xaafadaha kala duwan oo laga yaabo marar qaarkood oo kale inaysan telefoonno isku heli karin ama inay isu socdaan ay suurtagal ahayn inay iska warhayaan oo idaacaddii qofku uu waco uu dhegeysto oo dabcan uu ogaado xaafid hebel maanta waxaa ka jira arrin xiiso badan baa jirta mid kamid a dhegeystayaashu maalin ii sheegoo ahayd waxaa raba buu yidhi xaafadda suuqa xoolaha ayaa jooga waxaa raba inaa aado namber 4 marka wuxuu yidhi qof baa wax ka soo galay buu yidhi agaarka namber 4 qadka wuxuu sheegay in dhibaata ay ka jirta namber 4 anigana wuxuu yidhi waxaan raba markaa inaa aado namber 4 durbadiiba waxaan ogaaday in dhibaato ay jirto xaafadihii baan wacan u dhawa meesha buu yidhi waxaa laga sheegay dhibaato inay ka jirto marka taas macnaheed waxa waaye isku xirka xaafadaha ayuu barnaamijkan ka qayb qaataa iyo weliba nabadda iyo xaafad kasta waxay ku waabarisaa aad iyo aad weliba qofka siyaasi markuu yahay oo kale erey aad weliba u isticmaashay siyaasiyada la yidhaahdo cashe axmed cabdalle waxay ahayd qofka siyaasi hadduu yahay oo kale magaalada waxaa laga rabaa bay tiri inuu 3 waxyaalood ka ogaado waa marka ugu horeysa nabadgelyada socodka ganacsiga iyo xaafadda waxa laga hadalhayo macnuhu yahay qofka siyaasiga markuu ogaado 3daas qodob wuxuu ogaanaa saakay wuxuu magaalada ugu talageli lahaa iyo wuxuu ka aadi lahaa subax kasta barnaamijku marka uu soo galo waxa uu ku baaqaa nabad dabcan hees baa jira Soomaaliya nabad la yiraahdo inta heeska aan dhageysan heeskan maxaad ku xulatay waxaan u xushay dalka nabad buu u baahan yahay ilaa hadda nabad baan raadinaynaa weliba erayo aad muhiim ah ku jira heeskaas oo ah qorigoo kale qofkii sameeyay wuu nacay Soomaalidu weli way ku dhagan tahay marka ninkii sameeyay meel ka nacay Soomaali maxay ku dhagan tahay marka fariinta aan gudbinayno oo barnaamijku gudbinayo waxa weeye nabad in la helo oo dadka garowsadaan dhibaatooyinka ay leeyihiin rasaasta iyo qoryaha iyo
waagaag mahad soomaaliya nabad dabcan nabad baan u baahannahay wadanka u baahan yahay haddii nabad la helo heeskan xaguu ku dambay waa su-aal muhiima laakiin haddii nabadii la helo heeska looma baahna musiibadeena maya haddii nabad la helo heeska wuu istaagayaa laakiin haddii aan nabad la helin wuu soconaya ilaa nabad inta laga helayo rasaasta dadka lagu baabiinayo dabcan markaas caanihii baa imaanaya nabad iyo caano mahad ugu dambeyntii idaacadda capital voice sanad guuridii afraad ayaa maanta loo dabaaldegaya dabcan idaacadda muddada 4 sano ah feedback ayaa kasoo laabanaya dadka ka imaanaya siyaasiyiinta ka imaanaya fanaaniinta ka imaanaya qaybaha dhan ee bulshada ka imaanaya dabcan markaana waxaad ku qasbanaanaysaan maamul ahaan in markaa waxyaabahaasi wax un laga bedelo ma jiraan waxyaabo badan oo dadku ay soo gudbiyeen maxaase idin qorshaysan sanadkan cusub inaad la jaan qaadaan barnaamijyada haddii ahaan leed wax ka bedeladooda wax ku kordhintooda waad mahadsan tahay intaan u gudbin macnaha isbedelka lagu sameynayo barnaamijyada ama waxyaalaha cusub ee lasoo kordhinayo arrinta wararka oo kale waxaa jira laga soo bilaabo 9 ilaa 12 sida shaadiye ay sheegto oo kale in mashquul lagu yahay wararka macnaha arrimaha dhaca aniga shakhsiyan waxyaalaha ila yaabka waxaa ka mid ah mar kasta war murugala lagu soo sheegaya marba waxaa lagu leeyahay waxbaa saan dhacay waxbaa sidana macnaha marar qaarkood xitaa inaad hawshan wariyinimo aad ka shaqayso waad nacaysaa waxaad ku nacaysaa mar kasta haddaad news deskiga ama miiska wararka aad joogto oo kale wax murugalaha lagu sheegaya oo lagu leeyahay meeshan baad lagu dilay meeshan waxse ka yihiin marka inta badan waa dhibaatooyin macnaha jira qofka warka raadinayo kale ha noqdo qofka miiska wararka jooga ee wariyaasha wacaya ha noqdo wariyaha isagoo magaalada dhex jooga wax wacaya marka runtii ka shaqaynta mixnadan wariyinimo marar qaarkood oo kale waxay tahay mid aada u dhib badan weliba halisteeda iyo khataraheeda badan iyo weliba marar qaarkood oo kale ma jeclaysanaysa markaa maqasho oo kale isla saacad gudaheed lagu sheego lagu yiraahdo kale dad baa meeshan lagu dilay dad baa saana dad baa meeshan macnaha lagu qarxiyay bam dad marka ma jeclaysanaysa taa waxaa kasii daran maado capital voice muddooyinkii dambe dad dhibaata ay haysato kale ayaa jiray dabcan dad baa kula soo xiriiraya arrintaana soo ma jirto aad iyo aad waad mahadsan tahay arrin muhiima shaaca ka qaaday c d mararka qaarkood aniga shakhsiyan waxyaalaha dhib waxaa ka mid ah waxaa jira dad dhibaataysan oo dhibaata soo gaartay dhaawacyo ah idaacadda markay yimaadeen shirkadda warbaahinta Horn Africa qofka ku horeeya beegsanayaan aniga noqdo macnaha gargaarka ka raadinayaan marar qaarkoodna haddana wax uma qaban kartid waxaad awooddaa kaliya inaad waraysato oo qofkii dhibkiisa aad sheegto haddana dadkii way dhiban yihiin magaalada Muqdisho dhan baa dhiban marka dadkii dhammaan wada kaalmeyn kartid haddana qofka hal iyo laba ugu daran in tusaale u soo qaadato oo kale oo aad tiraahdo kale kiiska noocan ama qofka noocan oo kale dhib noocaas haysta wuxuuna u qalmaa in dabcan qofkan isagahay wax loo qabto waxaa laga yaabaa qofka noocaas oo markaa fursad siiso in dad badan ay imaanayaan maalintii oo dhan ku leeyihiin oo kale kaalmo u baahannahay in la wareystaan u baahna marka xitaa idaacaddu waxay noqotay hay'ad gargaar camal oo dadkii markay dhibaatooyin la kulmaan oo kale ma aaday hay'adii gargaarka idaacadii bay soo beegsanay waxay ku leeyihiin idaacadii hana wareysto arrimaha naga gudbiso midda kale barnaamijyada haddaan usoo laabto c d oo su-aashaadii hore ahayd way jiraan haddii la haydmo barnaamijyo cusub iyo qaab kale cusub haddii la haydmo inaan soo gudbin doono dhegeystayaasheenna ay maqsuud ka ahaan doonaan oo ku saabsan sanadka cusub aynu galnay because wax kastoo cusub markay yimaadaan oo kale jawi kale cusub baa la gelayaa laakiin xaaladda Muqdisho sidan ay iska bedesho oo qaab kale wanaagsan ay noqoto ilaahay na gaarsiiyo